Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome another video. Waad ku mahadsantihiin daawashada videogan. Maalin wanaagsan, subax wanaagsan. After that, quick video baan samayn doonaa oo review ah insha Allah taala. Kuwii shalay aan sharaxnay aan dul marno iyo kuwa opportunity-ga weli taagan hadduu Ilaahay insha Allah taala. Waad ku mahadsantihiin. Aan ka bilaabo Euro USD oo shalay European-ka markii la furayba dhicitaan Euroda iyo Pound-kaba ku dhacayay masha Allah. I think qofba meel buu galay qofba meel buu wax u arkaa lacagaha waaweyn. I think waxaan maleynayaa in qofba wax uu ka faa'iiday hal iyo lababa qaarna lagu khasaaray. Insha Allah taala Euro USD aan ku hormaro quick video. Yesterday markii aan sharaxaynay in this area in this candle buu ahay masha Allah waa dhicitaankiina si toos buu u sameeyay oo 4 saac waa u dhacay ilaa I think European-kii la furay wuu dhacay. Mareykanka markii la furay buu soo yara kacay laakiin alxamdulillah waxaana sheegnay inuu area-dan laba area inuusan dhaafin. Area-dan oo ah 1.1511 ilaa 12 ilaa 10 iyo inuusan dhaafi doonin 1.1530 markaasuu imaaday 1.1529 marka masha Allah I think qofkii meelo fiican ka soo raacay qofkii meelahan ka soo raacayba stop loss-kiis meelahan buu u dhex yaala but sorry qofkii trad iyo shalay soo raacayna I think inuu wax ka faa'iiday insha Allah taala. Euro USD area kale oo haddana waxay taagan tahay sell area balse u baahan xaqiijin kale maadaama lagu yara cadaadinayo oo waxaan dhihi karnaa this one waa header-kii buu noqon karaa left shoulder waxaan sugnaaba uu sameeyay shalay right shoulder-kii so mar kale haddii meeshan laga celiyo insha Allah taala up to here baan ka warsugaynaa oo isbuucan nin vampire-kii baa jiro insha Allah taala wax badan baa iska bedeli doono waa dhaqaaq fiican buu samayn doonaa sidaas darteed marka Euro USD qofkii sell ku jiray ama buy shalay ka soo galay xitaa inuu wixiisa stop loss-kiisa ka dawato ilaa muxuu ahay news-ka soo bixi doona insha Allah taala. Tomorrow Arbaca ayaa waxaa jiro hadduu Ilaahay idmo non-farm productivity baa jiro waxaa kaloo oo jiro oo kamid ah Eurogii baa European-ka baa hadli doono waxyaalo badan baa jiro newsidaas yaryarka marka waxaa kaloo jiro xitaa ISM non-manufacturing-kii baa jiro oo muxuu ahay ii sheeg hadduu Ilaahay idmo wax badan isbedeli karaan oo Institute of Supply Management sidaas darteed marka waa indhahaaga mar walba waa inay taxadaraan. Waxaa kaloo dhihi karnaa inuu hadda uu taagan yahay area resistance uu ka dhiganayo mar kale candle-kan weyn haddaad u jeedaan inuu ka dhiganayo qiimihii balse waxaan sugnaaba insha Allah taala in qiimaha loo cadeeyo so marka alxamdulillah Euro USD targetkii koowaad oo u dhamaaday oo ahayd 1.1530 inuu imaado shalay alxamdulillah si toos buu directly u imaaday sell-kii masha Allah. waxaa kaloo ku xigo oo aan fiirin doonaa Pound USD oo isagana shalay aan sharaxnay Pound USD sell limit-kiisa area-dan buu noo yaalay balse shalay waa dhicitaanka meeshuu kasii watay ilaa area-dan baa la filanaya inuu imaado laakiin muusan imaanin oo wuxuu ka laabtay ilaa qoriga uu imaaday 10 balse muusan soo gaarin area-dii 1.2800 muusan soo gaarin 10 pips baa uga dhibnaa balse in this area baan sell limit ku sugi doonaa inkastoo maanta xitaa oo news kale uu jiro shalayna negative uu soo baxay news-kii so marka insha Allah taala waxay u baahan tahay taxadar badan bay u baahan tahay oo maatada markii ku aadan tahay Soomaaliya
11:30 markay u tahay barqadii ama duurkii loo dhow yahay services baa soo bixi doono PMI oo poundka ah so marka insha Allah tacaala oo ah service purchasing managers indexka baa soo bixi doono kaasoo muxuu ahaay laga filanayo in qiimihii kor u yara kaco oo bishii hore oo ahay 53.5 lana filanayo hadda bisha inuu soo baxo 53.9 sidaas darteed marka qiimaha kulli saameyn sidaas u weyn oo buuran kuma yeelanaya balse xoogaa uu yara dhaqaajinaya sidii shalay oo kale qoryahan soo jeedaan waa newsidii soo baxay shalay negative sidaas marka insha Allah tacaala markii eeridan la imaado oo aad aragto qiimihii masha Allah sub confirmation laga siinayo after that qiimaha sell waa geli kartaa duuleedmo oo aan fiiriyo gold gold masha Allah in this area yesterday taan sheegnay haddii aad muxuu ahaay sorry 1 minute qiimihii shalay waa kana in this area markuu marayay waan sharxinay sell area oo kaasoo area resistance iyo qiimaha moving average u taagan yahay waa laga dulqaadaa uu ka soo baxa uu ku laabtaa uu kor u laabtaa markii dambe waa kana haddii aad aragtaan qorigan haddii aad aragtaan doojigan dheerka qorigan dheerka haddaad aragtaan gravestone doojiga wuxuu ahay qiimaha marka confirmation fiican buu ku siinaya soo ma arag intaas qiimaha uu dhacay masha Allah up to here uu gaaray 1190 uu gaaray masha Allah 100 pips hadduu ilaahay idmo qiimihii marka la isku dayi doonaa in this area in laga soo celiyo 1198 up to 1196 hadduu ilaahay idmo oo qiimaha u dhammaystiro 1184 ilaa 83 up to 1180 insha Allah tacaala inuu u dhammaystiro maanta ilaa tomorrow weekligan uu jiro November-ka oo negative la filan doono haddii qiimaha November-ka uu positive soo baxo haddii ilaahay idmo gold iyo lacagaha kale waxa waaye waa dhulka waay haddii qiimahaas uu negative soo baxo insha Allah tacaala wax badan baa isbedeli doona sidaas darteed marka qof walba faa'iideysto faa'iideysa isagoo ka taxadarayo stop loss-ka dhaxda keen haddii ilaahay insha Allah tacaala gold waa sell oo lagu wada jira hore u sii socda insha Allah tacaala just only stop loss-kaaga entry point-ga amba waxa keentaa take profit-kaaga dhexdiisa keen 20 ilaa 30 pips 15 pips si wax la'aan aysan kugu dhicin haddii ilaahay idmo aan fiiriyo pound Australian isagana quick aan u fiiriyo isagana masha Allah pound Australian waa kana in this area waan dhaana shalay qiimahan inta buu cuskaday shalay qiimihii marka Australian-ka oo saaka xitaa waa qorigan dheerka haddaad aragtaan wax soo riday wax kale maahan GDP-ga uu maanta kacay Australian-ka saaka morning-ka hore Soomaalina I think 10 saac bar habeen ama 4 barka habeenimo saqda dhexe Asian-kana xaggan Hindina way 7 morning ahead marka qorigan dheer hadda aad u jeedaa 4 saac oo mar dhow dhamaaday before 30 daqiiqo dhamaaday waa wax kale ma aan ilaa inta keen asigoo korka joogo wax kale ma aan waa GDP-gii oo maanta soo baxay yesterday-na muxuu ahay interest rate-kii weeye oo qiimihii aad aragtaan kanal inuu kor u sii socday oo qiimihii kor u tagay Soomaalida garan wax sidaas u weyn maahan within few minutes gudihiisa qiimaha hore ka buuda then muxuu ahay socod yar oo sameeya waana laga baxa haddii ilaahay idmo soo marka insha Allah tacaala in this area baan ku sugi doonaa weliba anagoo maanta og after 3 hours oo hadda laga joogo in qiimaha news uu soo bixi doono oo la filanayo positive insha Allah tacaala indaa lagu hayo pound Australian isagana waa sidaas xaaladiisu waxaa kaloo aan fiirin doonaa oo ka mid tahay euro Australian masha Allah qiimihii waa kana oo
aan filanayna ilaa eridan uu kusoo laabto after that oo qiimihii soo dhaco balse qiimihii waa uu socdaa maasha allah qorigan 4 saac sidaad baan Australian ku aragtay isku mid weeye oo waxaad ku aragtay in qorigii uu hoos u soo dhacay wax kalena ma ahan waa GDP positive Australian-kii saaka soo baxay kaasoo qiimaha marka maadaama positive Australian soo baxay lacagaha kale ka soo horjeedo waa inay soo dhacaan sidaas darteed markii qiimihii kor dheer buu samaystay laakiin qiimihii socodkiisii buu wataa marka waxaan sugnaaba in this area inuu ku laabto ama qiimaha hadda uu candle-kan hadda socdo aan soo dhaweyna saacadaha aad ku aragto qiimihii candle-kan dhowrkii saacada markaas news soo baxay resist oo support ka dhigtay qiimihii laga kiciyay isku dayayo moving average inuu mar un ka soo hoos baxo soomaalida garan soo marka qiimihii inta higher lower kale soo marka I think waxaan sugnaaba confirmation saxan after that sell insha Allah taala pound Australian hadduu aan leedbo ama maanta u sugno qiimaha price action-ka jihada uu ku xiro maanta ogaano haddii qayb hoos uu ku xiro after that tomorrow waa euro Australian waa sell insha Allah taala aan fiirino euro yen isagana aan sell ku sugaynay sell limit masha Allah in this area yesterday mar aan sharaxaynay meelahan bay ahayd I think in this area meelahan soo marka masha Allah in qiimihii meelahan laga celiyo balse wuxuu sameeyay oo ka hoos baxay in this area qoryar buu ka turtay laakiin waa u soo laabtay Soomaalida garan uu ka soo laabtay haddaad aragtaan gravestone dojiga qiimihii oo haddana mar kale inverted hammer amba wax u eg uu sameyn rabo balse aan sugnaaba ama hammer aan sugnaaba qiimaha wuxuu ka soo saaro iyo wuxuu sameeyaba doji miyuu sameyn doonaa wuxuu sameyn doonaa 4 saac mar dhow bay bilaabatay laakiin sell waaye I think waxaan malayna qofkii eridan oo kale xitaa oo sell limit ama eridan dhigtay in qiimihii oo sellkiisa hadda loo furay masha Allah sellkiisa loo furay after that oo qiimihii aan sugnaa in uu soo dhaco masha Allah waxaa kaloo dhihi karnaa qiimaha waa header madaxii left shoulder iyo right shoulder waa dhihi karnaa oo haddaa idin si fiican idin tusiyo waa kana madaxii waa kana left shoulderkii right shoulderkii aan dhahnaa waa kana soomaalida garan soo qiimaha insha Allah taala euro yen insha Allah taala sell today waxaan rajayn doonaa in this area inuu tegi doono 127 oo ku aadan ilaa 100 200 pips so waan arki doonaa insha Allah taala ilaahay nagu asturo qiimahana sell stop loss kaagana haddii area hadda 27 ilaa 30 aad gashana qiimahaaga waa inuu ku yaalaa in this area stop loss adulaad insha Allah taala oo aan ku yara cadeeno hadduu ilaahay idmo aan cabirno 190 pips in that area meelahaas ilaa 197 200 pips euro yen insha Allah isagana waan rajayn doonaa euro Canadian yesterday haddii aan sharaxnay asiga USD Canadian oo ahayd in uu soo bixi doono news Canadian todayna uu jiro Canadian oo u jiro interest rate Soomaalida interest rate Bank of Canada interest rate-ka oo la filanayo 1.50% so oo markii Soomaaliya u tahay 5 galabnimo oo loo garanayo maqribka markii la dhow yahay 11 galabnimo ama 5 galabnimo hadba sidii dadku u garanayaan in Bank of Canadian-ka oo interest rate decision-ka soo saari doona marka maadaama 1.50
inaysan wax iska bedelin baa la rajeynayaa. Haddii wax lagu daro qiimaha waa uu soo dhici doonaa. Haddii kale waa kana qiimihii inuu wax yar soo dego kor uga yara baxo ka baxay soo laabto, balse qiimaha waxaa laga yaabaa maanta intuusan Bank of Canadian-ka uusan gaarin in this area laga soo celiyo Soomaalida garan oo qiimaha sidaan maadaama uu soo dhacay oo ka baxay qiimaha in this area oo tago after that qiimihii uu sameeyo intuu Canadian-ka oo kale soo bixin uu soo yara dhaco then qiimihii uu sameeyo inuu kor aado hadduu alla idmo insha Allahu tacaala interest rate balse waxaa fiican ka hor selkiisa markaad xaqiiqsato oo hadda in this area candle-kii kor buu socdaa maadaama uu jibiyey trendkii uu jibiyey oo ka dhex baxay ma dhihi karno horuu kasoo laaban karaa. So marka waa yara sugaynaa haddii uu intaas uu na sii waayo so waxaa waaye waxaa idinkula talin lahaa interest rate-ka inaan lagu trade garaynin oo la iska dhaafo hadduu Ilaahay idmo insha Allahu tacaala. Haddii kale European-ka markii la furo Euro-da waxaan sugnaaba in waxaa waaye low ku furto lacagta Euro-da soo yara dhacdo then waa laga faa'iidi karaa inta Canadian-ka uu soo bixin hadduu Ilaahay idmo insha Allahu tacaala jaaniskiisa oo qof walba uu arko hadduu alla idmo. waxaa kaloo fiirinaa hadduu Ilaahay idmo insha Allahu tacaala USD Canadian waad aragtaan qiimihii wuu ka dhex baxay inverted hammer after that candle xooggan buu ka dhex baxay oo welibana aad iyo aad u xoog badan Soomaalida marka maasha Allah I think dad inay qaarkood la socdeen oo muxuu ahaay wax ka qabteen balse mar uu ka dhex baxay oo aan sugayay buu qiimihii sii socday maasha Allah Euro USD baa aniga iskaga mashquulsanay qiimihii hadda waxaan dhihi karnaa in inta laga celinayo USD Canadian in this area in laga yara celinayo oo qiimihii hadduu mar kale meeshaan uu kasoo laaban doono insha Allahu tacaala in this area uu kasoo laaban doono wax sidaas u weyn after that uu qiimihii uu sameyn doono interest rate haddii maanta wax isbedeli waayaan inuu bull oo dhaho laakiin waan sugnaa USD Canadian isagana intaas jaaniska haddii aad ku aragtaan insha Allahu tacaala sell waxaan kaloo ku dareynaa maanta New Zealand USD insha Allahu tacaala waa qiimihii waa kana uu soo dhammaystiray sellkii candle-kan hadda aad aragtaan waa bullish setup in this another candle so wax yar kor buu bilaabay wuxuu yara sameynayaa soo dhicitaan after that waxaan sugnaaba in qiimaha mar kale uu kaco hadduu Ilaahay insha Allahu tacaala kaasoo aan ku sugayno in this area New Zealand USD aan kaga fadhino ilaa this area inuu maanta gaaro ama tomorrow ishana lagu hayo so in that area haddii aad xaqiiqsato saacadaha yaryarka 20 minutes 30 minutes insha Allahu tacaala buy hadduu Ilaahay idmo stop loss-kaagana yuusan ka dheeraanin waa inaad xoogaa qasartaa lot size yarna waa inaad gashaa so waa New Zealand USD buy Euro yen oo sell Euro Canadian oo aan sugnaa confirmation-kiisa European-ka hadda markii la furo saacad kadib erida suuqa si fiican buu u furmi doonaa in qiimaha sell aan ku sugnaa Euro Australian isagana oo sell limit aan ku sugayno insha Allahu tacaala gold uu socdo waxaan kaloo aan rabay inaan fiirino oil oo yesterday isagana aan sharaxnay oilka maasha Allah oilkii yesterday in this area where 4th September in this area buu marayay shalay in this area so marka 70.1 so waxaad aragtaa qiimihii ilaa 7130 pips in qiimihii uu sii kacay 1 hour-ka haddii aan ku fiirino 1 hour-ka oo kale haddaan ku fiirino uusan qiimihii
uusan kasoo dhex bixin oo uu sameeyo doojiye yar Europeanka markii la furo qiimihii Europe inuu ku furay inuu kor u kaco soo marka Sacuudi Carabiya wadan baa ka hadlay oo ah Saudi Arabia is said to aim to keep crude in $70 to $80 soo marka waxaa umaleysaa inaysan sanadkan dhaafi doonin ilaa 80daas inay ku noqon doonto baa la rajeynayaa qiimaha crude oilka soo marka insha allahu tacaala waa uu soo laabtay markii dambe oo trainka 1 hour oo kale hadaad fiiriso muxuu ahaa qaybta sare lagu yar dhawey laakiin insha allahu tacaala I think in this time tomorrow baa oil kusoo bixi doono in November qiime inuu in this area uu ku laabto resistance maadaama qiimihii uu ku xiray downtrend qiimaha in that area 69.80 after that sell inshallah ta'ala oo ay ku mid tahay 68.54 in tomorrow amba ku hoos maro then hadduu uu ku hoos maro in this area oo qiimihii sidaan uga hoos baxo oo tomorrow uu sii sameeyo confirmation bearish ah oo kusoo laabto in this resistance qiimihii inuu tomorrow news kasoo bixi doono in qiimaha sidaas ku sii dhaco insha allahu tacaala ama in this area ama in this area balse insha allahu tacaala waan sugnaa stop losskaaga mar walbo hasla socdaa stop losskaaga iyo lot sizekaaga ha isku registraysnaadaan waayo waxay ka caawinaysaa qiimaha sometimes adigoo saxan waa waxaa dhici karo news oo aadan markaas adiga aadan ka warhaynin oo soo baxay wadamo qaar politicalka iyo qaar ay soo saareen ama madaxweynaha kale uu ku dhawaaqay adigana aad ka maqan tahay computerka iyo wixii in qiimihii uu isbedelo haddii aad lot size weyn ku gashay stop losskaaga hilmaantay ama stop losskaaga 100-200 pips aad ka dhigtay oo lotkaagan uu yari oo weyn yahay waxaa waaye markaas khasaaro weyn baa ku fadhisaa soomada gar marka insha allahu tacaala lot sizekaaga ha yaraado akoonkaaga ha isla socdaan take profitkaagan hala socdo insha allahu tacaala soo marka lot waaweynka kale sometimes 0.5 0.4 3 6 so waxaa geli karo qofka hadduu akoonkiisa aad u weynayno 1,000 2,000 3,000 4,000 doolar haddii ku jirto wuxuu sameynayaa scalping uu sameynayaa qiimo saxan buu salkiisoo kale intuu galo markuu cambaar socda soo celitaankiisoo kale buu markaas salkii uu kaga faa'iideysanaya adduunyada insha allahu tacaala soo marka waa US oilka aan ku sugayno sell limit 69.80 iyo euro yen oo sell aan ku jirno New Zealand USD oo buy limit oo aan ku jirno hadda ilaa oo aan muxuu ahaa door pips oo u jiro confirmationkiisana aan sugayno euro Canadian isagana confirmation saxan aan ka sugayno insha allahu tacaala euro Australian soo marka insha allahu tacaala signalada qaarkood markay ku furmadaan qaar ka mid ah buy limit iyo sell limitkooda waa in iska tirtirtaa hadduu alla idmo haddii euro Australianka oo kale la soo gaaro New Zealandka waa laga fiican yahay New Zealandka gurguritaankiisa waa aad buu u hooseeyaa socodkiisa sidaas darteed marka euro Australianka iyo pound Australianka oo kale ku bedelo insha allahu tacaala waadna ku mahadsantihiin daawashada videogan subscribe like share and comment waad ku mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh